haweeney ayaa oday lahayd 5 sano ayuu qabay. daariin ayaa la yidhahdaa haweenadaas. wax caruura uma degin. waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo ay ilmo yeelan doonto. ilaahay bay baryaysay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay welad saalixa uu siiyo ayay baryaysay. in badan ayay ducaysan jirtay, ilaahu welad isii, ilaahu 5 sano ayaan ku baryayaa rabbiyo welad isii, ilaahu welad isii. aad bay ooyi jirtay. waxay ku fikiri jirtay maalinka hooyo noqon doonto ilmo yar arki doonto ayay ku fikiraysay. haweenaydii waxay is aragtay isbedel bay ka aragtay. caadadii baa ka joogsatay. iyadoo madax xanuun le is aragtay. waxay aragtay iyadoo isbedeshay ayay is aragtay. dhakhtarkay tagtay way isbaadhay. odaygayaa raacay. wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay. way farxday. farxad 5 sano sugaysa. farxad isqaadi kari weyday. dadkeedu ilay ugu sheegtay farxad. waa la isugu yimid farxad. ducaa la sameeyey. wiilkii ay sugaysay ayaa yimid. uu dhashay. waxay u bixisay Muxamed ayay u bixisay. laakiin wiilka waa lagu jeexay. aad bay ugu faraxday. wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay ku dhibaatootay. odagayga waxay ka codsatay in ay u qabto haweeney u shaqaysa qaadimad iyo qabo. uu qabtay. waxaa jiraysay islaan da-ah oo faqiirada oo miskiinada oo guryaha u shaqaysa ayaa jiraysay. islaantiibuu u keenay si ay ugu shaqayso. markay 7 u shaqaysay ayaa waxay ku tiri, haweenaydii daarin bay ku tiri, islaan da-aan ahay, laakiin inan yar baa guriga ii joogta anu aan dhalay. inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso, anaana shaqada bari maalima la joogi. ay ogolow bay tiri. waayahay bay tiri. sidii bay inanteedii yareed ba u keentay. inantiibaa ay shaqada tusaysay. 20 maalmood ayay u shaqaynaysay. islaantuna ay agtaagneed gabadheeda. tayad da-deedu 17 jir ayuu yahay. aad bay u qurux badantay. way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso. way soo qurxin jirtay, soo labisan jirtay markaas iman jirtay. daarin ba arkatay oo mar walba isa soo qurxisa. waxay ku tiraahday soo qurxin. way cabsanaysaa, odagayga u cabsanaysaa inay meesha fidna ka dhacdo. may buu ku yidhi maxaa dhibaato ah? iyadoo foolxum intay ku iman lahayd soo qurxisa dhibaato male. inay faliisiiso ayay doontay. waxay tiri, wuxuu ku yidhi may 40 dhamayso kadibna markaa iska faliisi, laakiin ha kuu shaqayso. si yara gurigay ka shaqaysaa, way soo qurxisaa. 37 maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin xumadii xanuun dhiiggii dhifaaskii ayay xumad ka qaaday. ay ku xanuunsatay. odageygii ayaa si caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo uu iman jiro u wareegsan jiray. sideen xalay ahayd adigii xanuunsanayay maxaad? subax uu iska soo kacay baabkii ka baxay. way shakiday. maxaa dhacay bay tiri talow? muxuu ii soo mari waayey oo u baridin waayey? way shakiday. gabadhii shaqeedda ahayd ba u dhawaaqday. gabadhii ayaa maqli weyday. aad bay u xanuunsanaysaa. way soo kacday. iyada raadinaysa. aqalkii bay dhex marmartay. way ka weyday. qolkii ay seexanaysay ayay ka raadisay. way ka weyday. guriga xaggii mandarada ahayd oo kacday. waxay aragtay qolkii odageygu u seexanayay. iyadu ay wada seexan jireen oo dharkii hurdada xiran tahay oo hurido lugta dusaas. albaabkay furtay. waaba gabadhii oo naa waa maxay bay tiri, waxaad samaysay? way ku qayliday. ma waxaad seexanaysaa guriga odagaygaad seexanaysa oo dharkaygii baad xidhanaysaa? dharkii hurdada miyaad xidhan? waxay ku tiri, hadalkaaga u fiirso.
haygu dambaabi gurigan anigaana ma ogid uu i guursaday odaygu in 7 laga joogaba carusad baan ahay arrintiiba meesha khilaaf baa ka yimid waa la isku qabtay meesha saasaadaa bilaabay dumarkii iyo xagash dhulkaa la isku legi meesha dagaal xooglaa ka dhacay kadibna ilmihii yaraabay soo qaadatay axmed mise maxamed buu aha maxamed way la soo dhaadhacday hoostay la joogtaa odaygeygii baa yimid isagoo lalaya aawo buu yidhi waxay tiri kor bay joogtaa uu dhawaaqay umu maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo mayda oo calooshoo jiifta oo dhiiga ka soo dareer meel socda uu dhawaaqay khaadimadii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tiri maxaa dhacay subxaana allah iyadoo fiican ayaan ka imid hab kori maa ku oli meesha ma kori karaysid laakiin way kortay haddii buu dhawaaq ku dhastay akhiiran waxay socotaba qisadii dadkii jaarkaa yimid dhakhtarkaa loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimato albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna wuu furmay sidaasa ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaaba waxa uu yidhi miyuuna qonto la joogin markaas may buu yidhi wiilkeyga yar maa la joogay maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aasay 3 maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu u dhawaaqay gabadha xaaskiisan dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabbaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan maxamed ay korsadaan iyagu u soo dhaweeyey inantii shaaqiyadda ahayda meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yidhaahdaa meesha joogta ayay aragtay islaamtu waxay ku tiri odayay ku tiri gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxa uu ku yidhi inahaa zawjati waa haweenaydeydii daarin iyadoo oo nool baan guursaday gabadhan ma sidaasaa bay tihi haa way shakiday markaa waxay tihi gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanaya habkaad iigu sheegtay inay u dhimatay gabadhan may joogtay haa gabadhan waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah tushee dhaafka jeedhay nabarkaasaa ku furmay gabadhi yaradda egtay caruusadii jigiidka ahayd waxay tihi maxamedow i dhegayso ida kaanat alxaqiiqatu ikhtafat can ilmakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoonaatay makhluuqan ay ka qarsoon tahay xaqiiqadu falan takhtafii can ilkhaaliq ilaaha khaaliqa ah ka qarsoonaani mayso weligaa ilo dembigan mow u male ina la iska iloobay laakiin ilaaha iloobi maayo waa ku daba socon arrintaasi ogow abu maxamed uma aabayeelin arrintaas waxa uu yidhi kullu insaanin ya'kudu nasiiba qof walba nasiibkiisu qaadan way dhimatay nasiib abu maxamed waxa uu doonay inuu sharaab iyo ushubo uu iska diiday islaantii way xanaaqsan tahay waxay tiri ilmahan korsanayna annagaa ka xaysanayna waayahay buu yidhi waxau ku yidhi bishii walba masruufkan keeni may bay tiri annagaa korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen haweenaydii shaaqeedda ahayd jamaalaad la odhanayey gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa oo ku dhex noosha marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosha faqiirnimadii way ka raysatay xaalkeyguu wanaagsanaaday sanad kalaa soo maray si wanaagsan sanad kalaa soo maray si wanaagsan caruur bay u dhashay 8 wiil iyo 3 hablood ayay u dhashay waa imise 11 ayay u dhashay maalin wada qurux baa u diiraysay
miskinada ahayd faqiirada oon waxba haysan nimcad bay soo gashay laakiin dembigu ma yara. ilaahay addoonkiisa waa u kaadiya, markuu qadsana kama siibto. iyada oo nimcaddaa ku nool ayaa odaygayga waxay ku tiri waxaan doonayaa inaan soo yaro dalxiisno, in yar hawadaan soo yaro bedelayna magaalo kale nagee ha soo yaro dalxiisno. waayahay buu yidhi. baabuur ba ku qaaday way iyada iyo caruurteedii oo dhan 11 isagaana ku waday. baabuurkii baa la qalimay gebigood. waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkeygii weynaa ee curadka ahaa, bes intii kale way ku dhinteen. iyadii lafta dhabarka ayaa jabtay, wiilkeygiina iyo gacanta iyo melu ka jabay, laakiin waa iska riyooya. markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in caruurteedii inankaas uu ka nool yahay, 10 kale inay dhinteen ayay ogaatay. iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyey, baaralize baa ku dhacay. 3 sano ayay dhakhtarka ku jirtay. wiilkaygii 2 bilood ba ku jiro ka soo baxay. noloshiiba hadda ku culusaas waa la bilaabay, dembigii waa bilaabay. waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa, dadka laxaad kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ayay ku socotaa. wiilkeegii ayay ku tiri ii kaalay dhakhtarkan ka soo baxe baabuur buu soo kaxaystay. isagana wadada markuu soo socdo baabuurkii la rogmado, isaguna wadadu kusoo dhintay. wax u yimaada way weyde, waa keligeed, laakiin lacag baa leedahay la soco. dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen. aabbaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan. waxaa yimid maxamed, maad garanaysaa maxamed? waa wiilkii oo odagayga uu dhalay ayaa yimid si dhaxalkii aabihii uu uga qaato. waxaa la socotay macoydi ayaa la socotay, maantay dhashay daariin. gabadhii meeshay soo taagan tahay waxay tiri, markay islaantii aragtay ayay xasuusatay inay dembi gashay. waxay ku tiri, habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii aad igu tiri ida alxaqiiqatu ikhtafat can ilmakhluuq, xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa, dadka ay ka qarsoon tahay, ilaaha khaaliqa kama qarsoona, maxasanta haabay tiri. waxay tiri, saamixni ana alatii qataltu daariin, gabadhaadii daariin anigaa dila isaamax. ilaahay waa kan ii qabtay, caruurtaydii oo dhan waan waaye, anigana waankaa dhabarkaa la iga jebiyey, noloshaa qadhaadh baan ku noolahay, isaamax. islaantii way oyday. waxa ay tiri, ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo, aakhirada ha kugu cadaabo. waxay tiri, odageygii waan waayey, awlaadaydii waan waayey, shabaabnimadaydii iyo caafimaadkaygii waan waayey, in yar u isaamax. islaantii iyadoo adhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday. jamaalaad xajibay reerkoogii la joogtay. aabbaheed baa dhintay, walaalkeed ayaa u hadhay. lacagtii yaraydeed soo dhaxashayna isagaa ka qaatay, khamru ku cabbay, uu ku zinaystay. isagiina akhiiran si xun buu dhintay. jaarka ayaa lacag u soo ururin jiray, sadaqada la siin jiray. jamaalaad keligeed ayay ku nooleed maqsin yar oo cidhiidhiya, cidlay ku dhimatay. waxaa lagu gartay dhimashadeedii meydkeygii ayaa meesha ku qurmay, markaasay jaarkii uriyey meydkii. cadaabka aakhirana waa ka daran yahay. dembigu waa sida ilaahay rabbi subxaanahu watacaala uu kuu kaadin, laakiin maalinka uu ku qabto rabbi ku naxariisani maayo. waad ka noolaan waxoogaa waad ka jiri,
laakiin maalinka ilaahay rabbi subxaanahu watacaala uu ku qabto ka fakan kari maysa. waa xaqiiqo, waa qisad dhaba, ma aha khayaal, ma aha. وأكون للخير